asalaamu calaykum kusoo dhawaada codka ubax ood ka daawanaysaan bogga youtube-ka sidoo kalena aad ka dhageysanaysaan adeega podcast-ka waxaa la jooga cabdicasiis cabdilaahi. cabdicasiis waa nin laga yaabo muuqaalkiisa inay dad badani aad u garanayn marka la barbar dhigo muuqaalada uu isagu duubo oo malaayiin Soomaali ah ay si joogto ah u daawato. magaca lagu yaqaanana uu yahay cabdi kusoo dhawaad codka ubax. aad iyo aad baan ku salaamayaa Ismaaciil, aad baad ku mahadsantahay. dadku markay wajigaaga arkaan miyaanay ku dhicin dib inaad soo barto maadaama ay muuqaaladaadu yaqaanaan iyo magacaaga? Exactly, mararka qaar waxaa jira mataqaanaa dadku magacun bay garanayaan aanay waxa laga yaabaa mararka qaar inaanay wejigayga aanay aqoonsanin oo maanta oo dhan aanoo jooga meeshii inay hadhow videogun arkaan yidhahdaan cabdicadu keebuu ahaa. dadka qaar baa jira mararka qaar. cabdicadu waxaad samaysaa muuqaalo runtii aad u qurux badan oo kooban warbixinta intii looga baahnaana tabinaya aan dheerayna qofkuna si fudud ugu daalacan karo. muuqaalada waxaad ku duubtaa telefoonka oo qalab dadku malaha laga yaabo maskaxda inay ku hayaan qalabyo waaweyn iyo waxyaabo kale inaad ku duubto, laakiin mobilkaaga jeebada uu qof waliba ku sito oo kale ayaad sidataa. halkeed ka soo bilowday? runtii muxuu ahaa mobilkan inaan maaragtay video ku sameeyo waxa weeyaan waqti dheer baa maaragtay iyo taariikh badan buu lahaa, ma garatay. so marka maalmaha kamid ah waxaa jirtay anoonan telefoon lahayn oo ninaan saaxiib nahay oo telefoonkaa leeyahay in aan telefoonkiisa mar walba aan ka qaadan jiray saan mar aan video ku samayn jiray. kadib wax dhacday markaan xoogaa aan kolba maalin ka qaadanay ninkii dee waxa weeyaan waxaan wejigiisa ka dareemay inuu maaragtay uu yara diidan yahay dee mataqaana telefoon isticmaalayo, dee telefoonkiina laga buuxiyey, ma garatay. so marka maalintii dambe wuxuu igu yidhaahday saaxiib aad iyo aad baa mahadsan tahay laakiin jaamkaagii oo batee dee maalin dambe inaas ku soo habeeyaamin, ma garatay. so marka wax dhacday in aan muxuu ahaa lacag yar ururiyey. lacagtii yareen ururiyey kusoo iibsaday telefon. markaasaan markaa aan u banbaxay inaan muxuu ahaa shaqo caadiya ka dhigto. markii hore iska xaraaban bahayd. laakiin sawir jacaylku wuxuu kaa soo raacay waqti hore maaha wax imika uun kugu dhashay? wallaahi ugu yaraan 11 sano ka hor bay ahayd mar aan asxaabta intaan israacno kadibna anugu aan sawirada aan mar walba ka qaadi jiray. weligay ma jeclayn in anugu si sawiro, laakiin aan waxaa jeclaan jiray inaan dadka aan aad u qurxiyo. muuqaaladii aad sawiri jirtay waxa ugu horeeyey sida waxa la dhahdaa fanaaniintu inta badan ilaa ay Hargeysa u heesaan. Exactly. ma soo baxaan baa la dhahaa inta badan. waa run. muuqaaladu ma la mid baa? waruna waxa weeyaan kulli magaalada Hargeysa oo magaalo yar oo barakeysan runtii qofka Hargeysa wax ka bilaabaana ganacsi iyo wax walba runtiina wuxuu noqdaa un qof bulshada kale Soomaalida ka duwan. muuqaalkii ugu horeeyey waxaan duubay Hargeysaan ka duubay suuqa Hargeysa ayaan ka duubay goor maghrib ahayd oo markaa labadii iftiin uu jiro. marka videoga aan duubay dad aad u fara badan waxay u haysteen in lagu duubay kamarada waaweyn. marka fikir waxay u soo dhacay inaan magaca ku qoro. maanta safarkaaga marka la eego dee runtii waxaad maraysaa heer aad u wanaagsan, Allah ku barakeeyo. waxaa jirta muuqaaladaadu imse milyan baa daawada? wallaahi waxaa jirta iminka sanadkii ugu dambeeyey, hadda sanadkan 2 December 23 iyo 24 December intii u dhaxaysay 170 milyan baad posting viewers ka daawaday. waa TikTok weeyaan. culays intee leeg bay kugu haysaa waxaas wadada inay ku daawadeen? wallaahi mataqaanaa waxa weeyaan uun sababa fudayda culays maaha. kulli culayskeeda leedahay runtii. culayskeeda leedahay. waxaa jirta runtii aan muuqaalada de qofku markuu samaynayo sidan oo kale si ummadana u soo bandhigayo waxaa jira haddana waa xirfad lagu xoogsan karo oo lagu shaqaysto. inkastoo malaha aanay aad
uga shaqaynin Soomaalida dhexdeeda marka la eego dadka wax sameeya iyo heerka ganacsiga ay xirfadooda ka soo saaraan in kasta la moodo inaanay badnayn adigu shakhsi ahaan waxaad ka mid tahay dadka ku shaqaysta sida saxda ah ma garanaysaa markaynu bilamayni waan xasuustaayo jadwalka kalendarkadii eegaysay waqti bannaan ma fahansan yihiin shirkadaha Soomaalidu mawduuc aan aad u jeclayn uga hadla weeyaan oo inta badan anagu aan xiiseeyo waayo waxaan ogahay in dhaliilo badan oo xagga shirkadaha ay jiraan ma fahansan yihiin shirkaduhu qiimaha ay leedahay shaqada qabanaysa horta waxaa jirtay mar waxaa jirtay runtii aan kaamaradu qiimo weyn aanay ku lahayn inuu qofku xaysiis uu sameeyo sababtoo wax ka baawar weynaa xaysiiskii lagu qabanayay raadiyo Hargeysa ama magaranaysaa jaraa'idada iyo waxyaabahaas so marka mar badan tviyada waan ka daawan jiray xaysiisyo dee magaranaysaa qof meel dhan oo aad u qurux badan oonan si fiican loo soo bandhigeen runtii waxay ahayd un fikrad igu dhalaysay in dee quruxda dalku leeyahay iyo quruxda ganacsiyadu leeyihiin inaan u tafaxayday inaan wax badan ka bedelo so marka waan xasuustaa ganacsiyadii ugu horreeyey aan magaranaysaa video ka duubayay anigoonan nothing mobile haysan laakiin aan jeclaynan maaragtay wax duubo kamaradna markaa aanan haysan baan indha adaygayga intaan u imaaday dad magaranaysaa meel markaa la furay ninka aad baan halkan uga salaamayaa runtii waxa weeyaan intaan u tegay baan ku idhaahday video maker baan ahay anaa isku sharaxay kadib wax dhacday wuu soo dhaweeyey waxay ku idhaahday waa sax weeyaan videoga noo bilow waxaan ku idhi hadda ayaan ku bilaabaya wuxuu idhaahday okay ma qalab ma sidatid xataa telefoon ma sitaba markaasaan ku idhi adiga telefoonkaaga so iPhone maaha marka iPhone 7 buu haystay kan baan ku idhi isagiiba markaa videogu samey waabu yaabayba waxaan ku idhi maanta lacag kaa qaadi maayo laakiin saadii soo dhaweysay baan aad ugu faraxsanahay shaqadiina markaa runtii halkii baan kasii bilaabay waynu usoo noqon doonaa heerarkaad usoo martay muuqaaladaada maanta quruxda badan leh laakiin ma jiraa qalad fahan dadka ka haysta mobil inaad wax ku duubayso wallaahi waa runoo waxa weeyaan runtii iminkunbuu dadku shakiga ka baxay in mobilku ma yahayba mataqaanaa inaanu ka muhiimsanin wax lagu duubaya inay ka muhiimsan tahay qofka wax duubaya iyo siduu wax u fahansanya marka wax dhacday marar badan aan maaragtay dad aan ballanay oo heshiinay oon booking gareeyey kadibna aanu imaaday aan siri hawshii bilow ay la raadiyeyba kamarabaankii anigoo taagan markaa way dhacdaa mararka qaar dee maaragtay wax jiray mar waxaa jirtay nin aan u shaqaynayay kadibna waan ballanay ninkaas markaan ballannay anu beriga hore markaa waxaan u sheegi jiray qofka inaan mobile wax ku duubo ninkii uu qaadi waaye shirkadaada weyne intaa leeg baa mobile wax lagugu duubi doona lacagta intaa leegna lagaaga qaadi doonaa markaa ninkii wax dhacday inuu igu idhaahday adeer anigu mobile waan haystaaye sideed lacag iga qaadi kartaa marka waxaan ku odhi ha degdegin koley anigu waxaan soo saari doono ma ogide bal waad tijaabin doontaa soo ninkii dee markaa wiila yaabay dee mabuu qaadanba dee maaragtay in mobile wax lagu duubi karo sidii baan ku kala tagnay muddo 2 sannadood kadib markuu arkay magacii uu ka batay ninkii uu shalay toolo ku lahaa waxba ma samayn kartid wixii soo maray 10 nin oo caana oo magaalada dee mataqaanaa uu ka dambeeyo markaas ku yidhaahday ninkii bal marun dee meeshayda hay baalay intaan u yimid aan u xaysiibaan video markaa free aan siiyay lacagtii berigii uu ka cararayay iska haysaan maanta uma baahnay sababta sababtu waxay ahayd inaanu beri toole dadka mobilada haysta content creative ka sameynaya inaanu u eegin iyagu waxay haystaan laakiin se uu u eego beri toole waxay qaban doonaan so hadday arkaan inaad videoyo meesha ay leeyihiin ay kugu yeedhayaan meel lamida aad duubtay waxaa laga yaabaa inay aad ku heshiisaan lacagta laakiin se hadday ku arkaan inay qof cusub tahay waxaa laga yaabaa inay aad ku baqsaan ay ku dhahdaan dee shirkadda intaa leeg baa intaa nagaga tagtee maxaad lacagta intaa leeg nooga qaadasa
marka qaar way jirtaa inay igu dhacday dee aniguna markaa waxaan ku dhahdaa anigu hebel ma yihi hebel u yeedho. caqabado noociyee baa ka hor imaada dadka ku shaqaysta xirfadaadan oo kale? haddii tahay dadkay wada shaqaynayaan iyo meeshay ka shaqaynayaan. tusaale imika meel xaflada hataa laga shaqaynayo oo qofku markaa uu yahay qof mobile wax ku duubaya, waxaa laga yaabaa inay kaamaramanada kale oo dhan aanay u arkinba qofkan inuu qof shaqaynayo yahayba. marka 300 jeer baa qoray maxaa hanoo soo dhawaan hanaga maxnaa dee magaranaysa hanaga durug oo kale macnaa sidii iyagu maaragtay ay kaaga fiican yihiin shaqadii magaratay maadaama ay kamaradu weystaan. maadaama kamaradu weystaan waxay isleeyihiin dee qofka yara mobilka sitaa wuxuu yahay macna weyn ma samaynayo dee wax duubi doono. hadda laakiin waxay ogaadeen in maaragtay mobilkii ka saameyn badan yahay kamaradahoogii. waxaa jira waxyaabo badanoo intii aad ka shaqaynaysay xirfadan suuqa iska bedelay, adiga laftaadan lagaga dayday, maxaa ka mid ah? waran waxaa jira mataqaanaa markii berigii ugu horeysay aan kusoo biirayay inaan video maker noqdo, aan welibana mobile la soo galay magaaladii. dee waxa weeyaan may jirin mataqaanaa aroosyadoo kale in video highlight ah lama aqoonin runtii. wax kaloo maaragtay aan kusoo kordhiyey inaanan maaragtay aroosyadu badanka way jireen in fujaama hablaa la raaciyo. marka guri in la sharaxo dabeedna inantii wixii la raacin lahaa oo dhan gurigaasoo dee maaragtay la habeeyey video laga soo duubay lama aqoonin. markaas qofkii ugu horeeya dee videoda saa soo sameeyey baan ahaa. wax kaloo maaragtay runtii ka bedelay in video degdeg ah aan samayn jiray oo xafladii socota isla markaaba aan videogii lagu arki jiray social media ama aan dadkaan u shaqaynaya siin jiray. dabcan qofkao dhalinyarta markuu heerarka kala duwan maraya, cid baa taageerta, cid baa dhaliisha. haddaynu dhanka taageerada ku horeyno, cid ma jirtaa fikrada kugu darsatay ood maanta u bogtay fikirkoodii? walaahi waxaa jira nin aan halkan aad iyo aad uga mahad celinayo. ninkaas waxa weeyaan ninkii maaragtay maalin anagoo wada shaqaynana baa wixii gu idhaahday tala yar buu siiyey. waxaad samaystaa buu igu idhaahday inaad card furatid ama bangi furatid, macnaha waa inaad lacag uun ku shubatid, miyaad fahantay? marka haba ugu yaraata $1 beribi wax kuu taraysa. marka ninkaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. markaa wax kaydsaduu ku lahaa? exactly. dee waxa weeyaan berigaas muxuu ahaayey wax dee maaragtay dhayalsiyunbay wax walbaba iga ahayd inaanan maaragtay aanay shaqayga ahayn, laakiinse wixii aan markaa shaqayn jiray aan haddana beritole iska burburin jiray. sheekooyinka kugu dhacay waxaa ka mid a tusaale ahaan in aroos tusaale ahaan ama barnaamij ama munaasabad aad duubaysay muddo dhan lagu raadinaya adigoo ag taagnaa? walaahi way jirtaa. iyo waxa weeyaan wadamada jaarka baanu tegey, dabadeedna waxa weeyaan inantii caruusad ahayd soo runtii anugu ismaanan garin, laakiin ininkii isku kaay xidhay baa markaa anigoon kasii horeeya hoolkii baan sii joogay. marka badankan waxaa sameeyaa hoolka waa inaan uga sii horeeyo saacad ama 30 mirir oo kale. marka iyadiina ismaan garay gaariga ku dhex jirtay, iyadii waxay raadinaysay inuu soo dego kaameramaankii joogo uu dee magaranaysaa qalab fara badan iyo dad fara badan bay meelahan keegeegisay. so inankan way garanaya inaan anigu mobile wax ku duubo umuu sheegin, isagaa qaladka lahaa. wax dhacday inay inantii raadinaysay maanta oo dhan ninkii kameramaanka anigoo taagan meeshii, sababto aanay dadku wejigii ma yaqaanaan, magacayga ma garanayaan. mobilkanna ma way fahansanin. markii ugu horeysay waabay niyad jabtayba. markii dambe baan ku niyad deji videoyaan tusay. markii dambe habi noqotay, dabeedna videoyadii baan usa sameeyey. isla iyadoo meesha dhammaanin baan videogii siiyey. runtii aad bay igu faraxday. waxaan doonayaa inaan dib ugu noqono sidaad soo bilowday. runtii dadku dee faham badan kama haystaan heerka qof bini aadanay uu mari karo riyadiisa ilaa looga sheekeeyo. adigu waxaad ka soo bilowday meel fog. markii ugu horeyseen fikraddii igu dhalatay inaan
aan wax sameeyo, sawir qaado. Marka horreysay sawiradan aad u jeclaa, dabeedna sawiradan ku bilaabay. Videogu mar dambe buu ahaa. Markaa anigoo muxuu ahaa sawir qaaday kamaradii wata, baa kamarada lenses dheer bay lahayd. Kadibna maalintaas lenseska baa iga jabay. Kadibna waxa dhacday inaan muxuu ahay aan igu qaadatay muddo fara badan in lacag maaragtay lenseska loo raadiyo kamaradaas. Kadib waxa dhacday anoo in badan muxuu ahay hobigaygiina ahayd oon aad u jeclaa, baashina ay guriga iska dhex taalo. Baa waxa dhacday inaan maalmaha ka mid ah ku fikiray inaan anigu shaqo tago. Kadibna hodheel magaalada ka mid ah, Hargeysa ka mid ah, baan u shaqo tagay. Waiter baan noqday. Kadibna aniga waiternimada markaan u noqonayay imay ahayn inaan kaliya toon shaqada iska sii wato, laakiin waxay ahayd inaan khibradna ka qaato, dadna iska barano, lacagna ka urursado. Markaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hodheelkaas. Hodheelkaas runtii wuxuu ahaa hodheel noloshaydaba dhisay oo hambal iga dhigay. Runtiina mataqaanaa inaa qofku dadka soo dhex galo waxa ku baraysaa inuu qofku meel hoose ku shaqeeyo. Waxa weeyaan runtii dadkeenu waxay u arkaan in qofku markuu yahay magaranaysaa shaqo hoose uu ka shaqeynayo inuu dad ka liito bay u arkaan. Laakiin se anigu markaa waxaan u arkayay in fursad waxbaan u arkayay ah in noloshu aan meel fog aad ka keeni kartid magaratay. shaqo hoosena maaha Shaqo hoosena maaha. shaqo caadiya. Waxa weeyaan waa shaqo runtii waxaad u shaqeynaysaa cid walba. Marka shaqadaasi waxay ahayd shaqo runtii noloshayda aad soo dhistay. marka waiternimaad ka bilowday. Waiternimaan kasoo bilaabay. Waiternimadii runtiina waxay ii noqotay khibrad iyo experience. Markaa wax dhacday kadib markaan 8 bilood oo kaliya ka shaqeynayay in lacag tiiran urursaday aan damcay inaan mobile ku iibsado. Marka lacagtaan beriga ku shaqeyn jiray haddaan Ismaaciil kuu sheego waxay $120 bishii oo dhan. Waxaanan kici jiray 3 daqiiqo bas saacadeedii igu soo dhici jirtay habeenimo. Markaa hodheelku wixii jiray xaafadda ilaa hodheelku wax isku jireen 4 kilomitir. Markaasaan soo lugeyn jiray ilaa ma jirin gaari xilligaas socdaa ma jirin, bas iyo taxi iyo waxaas ma jirin. Markaa intaan halkaa ka soo lugeeyo baan shaqada toos u imaadaa. Markaa masaajidkaan sii galaa. Markaa hodheelkaasi wuxuu caan ku yahay shaqaalaha 4 qof ee markaa cusub ee la qoray waiterada waxa weeyaan cadaabaha la jirsiyaa. Sababta cadaabaha loo jirsiinaya waxa weeyaan shaqada hard workerka la baraya. Runtiina waxa weeyaan lacagtaan qaadanayo $120. Waxa laga yaabaa inta asxaabay inay ku yimaadaan ay mararka qaar biilal kugu jaraan. adoo alxamdulilah yani meeshaad ka shaqeynaysay intay maadaan wax cunaan asxaabtaadii oo kala macnaha ma fahansana in maaragtay waxaad u qaadanaysa sababtoo waxay arkeen inaa hodheelka shaqeynayso lacag buuran bay moodayaan qaadanaysa. Marka alxamdulilah lacagtii markaa berigaan aan Ismaaciil u urursaday ayaan maaragtay mobile ku iibsaday. Markaa sidaasaan markaa mobile video maker u noqday. Welibana waxaan ahaa Ismaaciil aan kugu daray qofkii ugu horreeyey intuu mobile soo qaatay la wada sito kaga dhabeeyay oo yidhaahday anigu mobilkan baan ku shaqaynayaa, magaaladan isku barayaa, qasabna waxaan ku barayaa dadka in uu mobilkaas ka fiican kamarada. Alxamdulilah dadkii berigaas runtii aan soo wada shaqeeyey aan shirkadaha ugu duwi jiray dad aad iyo aad wanaagsan bay ahaayeen, way soo dhaweeyeen, lama yaabin oo wax weeyaan waxay ii arkeen inaan ahay qof firfircoon oo dadaalaya oo markaa wax weyn soo kordhin kara. Dadka qurba joogtii wadada aad iyo aad u qalbi wanaagsan, wax badanna fahansan runtii. Shaqooyinkii ugu horreeyay aan ka shaqeynayay markaa waxay ahaayeen badanka Ilaahay wax la kulmiyay dad qurba jooga markaa oo dalkii ku soo noqday
oo ganacsiga furtay runtiina way aamineen waanay soo dhaweeyeen. waxaa la dhahdaa inta badan qofku markuu ka shaqaynayo meelaha adeegyada dadka bixisa ama uu isagu adeeg bixinayo sida markaad mudalabka tahay oo kale ama waiterka oo kale aad soo hay dadka la kala bartaa baa la dhahdaa inta badan. dadka dabeecadooda waxaad ka baratay beriga? runtii waxay bartay dadka dabeecadahooga. dad wax jira kulkulul, dad wax jira habi ah, dad wax jira iska qabqabo, wax jira dee maaragtay dad degdegaya ayaa jira. so markaa waiter berigaan ahaan jiray waxay bartay maaragtay inaan anigu samir yeesho. samirka maaragtay iyo inaan dabeecadaydii aan kaga imaado xaafadaydii, sababtoo ah magacaan ku shaqaynaya waa magaca hoteelka. magacaan ku shaqaynaya waxa weeye magaca qofka ownerka ee meeshas kale. sababtoo ah haddaan xumeeyo customerkaas waxaa laga yaabaa inay uga tagaan ma garanaysaa aniga dartay. marka cid walba way ku imanaysaa. waxaa jira dad maaragtay kulul, dad qabow, dad habiya. markaa dee qof kastaba waa in lagula shaqeeyo. kuwa casuumadaha le ka war? mararka qaar wax jirta inay yihiin ay mararka qaar kusoo beegmato dadka iska dhaadhiciya runtii oo ay in waiterkiiba ka odhanay waryaa alaabtan keen waxaan keen wax maaragtay waxay ku dirayaan mataqaanaa kaba baxsan baadii doonaan shaqadoodii ma garanta. marka waa inaad dee adigu hoteelkiibaad matalaysaa ama dee waxaad dadkaasoo kale waxaad kula dhaqmaysan karaysaa oo keliyata. waa inaad dee markaa aad isdejisaay oo tiraahdo haye waan kuusoo qaadaya waan maaragtay. cabdicadda waxaad soo martay yani waad u soo dadaashay halka maanta aad joogto. intee in leeg bay muhiimtay qofku inuu jecel yahay wuxuu ka shaqaynaya? horta waa inuu qofku horta isagu is ogaado maxaad adigu ku fiican tahay. waxaad adigu ku fiican tahay, aad adigu jeceshahay, aad adigu rabtid, waxay kaaga fiican tahay shaqaanad adigu doonahayn oo lacag keliya ka qaadanaysid. qofku wuxuu jecel yahay markuu ka shaqaynayo iyo markuu Ismaaciilow qofku aanu uu lacag markaa meeshaasun u eegayo waxay ku kala duwan tahay. xataa waqtigu qofku gelinaya mataqaanaa ayaan isku mid bahaynba. laakiin qofku hadduu keliya lacagun ka eegayo waxaa laga yaabaa inaanu horumar saa u sii weyn iyo dhaqaale saa u sii weyn aan runtii ka helin. laakiin mar qofku wuxuu jecel yahay waxaa laga yaabaa in uu mataqaanaa hadda xataa waqti extra lagu daro in uu dee maaragtay ugu shaqeeyo si hagar la'aan ma fahantay. daylan waa wuxuu jecel yahay. laakiin qof markaan waxaanu jeclayn ka shaqaynayo walahi waa dhibaatadeeda. marka maanta laga fikiro muuqaaladan gaagaaban dadka intooda badan hadday dhammaantood ba ahayn waxaa tahay qofka ugu horeeya madaxooda kusoo dhacayo cabdicadde. heerkaad maanta soo gaadhay marka la eego qorshayaashaada mustaqbalka maxay yihiin? waxaan anigu rabaa insha allahu tacaala in fikirka mataqaanaa ama sida wax loo duubo inaanay keliya ku koobnaanin xun in la duubo. in aan sameeyo shirkad weyn oo runtii somalilandna si fiican ugu adeegto insha allah. media waxaa laga aaminsan yahay ama dadkan wax duubo keliyata in ay imika uun eegaan un viewriskooda wax ku kacayo keliyata aanay u eegin beritoole mustaqbalka waxaan adigu duubaysid. dalkii buu saameyn ku yeelanayaa. qof meel iska jooga ayaad been weyn u sheegaysaa. waxay eegayaan un keliyata un inaanay u eegin war waxaan ma wanaagsan yahay aad samaynaysaa, laakiin waxay u eegayaan waxaan viewers ma gelaysaa. waa waxa maaragtay aan raba inaan maaragtay aan wax badan ka bedelay insha allahu tacaala. ilaahayna hanoo fududeeyo taas. in aan sameeyo mataqaanaa xafladaha waaweyn oo kale inaanu sameeyo mataqaanaa full documentary oo kale. in aan sameeyo sawir qaadidii. inaan sameeyo mataqaanaa full project oo kale. in maaragtay wixii oo kale la isku wada qaadan karo. hadda laakiin mobile un bay noqotay. mobilka hadda waa laga gudbo. dad fara badan baa jira alxamdulilah oo hadda bartay mobilkii. kuna waan ku hambalaynayaa. waxaa leeyahay waa dadaalisaan halkaa kaga sii wada. runtiina waxaa jira in laydin niyad jabiyo, laydku idhaahdo meel ma gaadhaysaan, laydku idhaahdo waxaan mobile unbaad la cararsaa. laakiin se haddaad adigu jacayl aad jeceshahay in aad cameraman aad noqotid, waxaan ka odhan lahaa halkaa istaagine meel kasii saraysa waana higsatid. maanta halkan taagintii aanad ku joogsanin.
caqabadaha kaaga yimid waxa jira qofku markuu wax bilaabo wax samaynayo hore waynu uga soo hadalnay dadku caawinaya baa jira laakiin sidoo kale waxa jira dadku dhaliilaya ama ku niyad jebinaya ama ha noqoto asxaabtaada dhow ama cid kaleba ha noqotay adigu ma soo martay saas oo kale wax jirta Ismaaciil oo mararka qaar qofka haddaanu kalsooni lahayn in aanu wadi karahayn shaqadan waxa kow ka mataqaanaa dadka adiga kula shaqaynaya inay ku yasaan ay ku yaraystaan sababtoo ay waxay meesha taagan 10 cameraman oo de cameradoogii u rakiban yihiin marka mobile la soo istaagtay oonay garanahayn qiimaha mobilka de haddaanad adiguna kalsooni lahayn aad ku istaagtay ood ku duubtay ood ogtahay inaad adigu ka fiican tahay 10 cameraman de mataqaanay intaasoo kharash kamarada gashay adigu haddaan naftaada ku kalsoonayn oo ogeyn in mobilkaasi wajiga ka fiican yahay runtii meel ma gaadhisid marka carqaladii ugu waaweynaa waxay ka mid ahayd in kuwa kameramanada ay ku yidhaahdaan waad na hormaraysaa yaa na hormare oo kale iyo muxuu ahaa kamaradaydii waad ka dhex muuqataa maadigaan kaa shaqayna waa meelaha ka duwatid marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan qofku wixiina jecel yahay kalsooni fiicanna uu leeyahay asxaabta ayaa mararka qaar wax ka odhanayaan ninkaaga weyn mobile baad wadataa maxaa muxuu ahaa kamarad ku bedeshid oo kale ama aad maaragtay mad wax kala samaysid ama shaqadaadii maaha miyaad wax kale maxaad qabsanayd haddii maaragtay tashuush badan lagugu furfuro adigana meel ku caddahay dee waxaad eeganaysaa uun waxaas baad adigu eeganaysaa saad ogtahay ba cabdicadda waxaa jira shaqo la-aan badan baa dhalinyarta haysata habkani ma yahay habay kaga bixi karaan shaqo la-aanta runtii anigu waxaan aaminsanahay in aanay shaqo la-aan jirin laakiinse dadkii waxa haysta kalsooni dar haysta waxay maanta ku shaqaysan lahaayeen inay ku dhargi lahaayeen waxaa laga yaabaa inay ka baqanayaan in la yidhaa war hebel wuxuu ka shaqaynaya shaqo hoose tusaale markay qurbaha tagaan oo kale waxaa laga yaabaa inay shaqo hoose ka shaqeeyaan shaqada hoosena ay runtii u arkaan inay tahay shaqo ay kaga bixi lahaayeen muxuu ahaa faqriga laakiinse dalkoodii markay joogeen keliya waxay raadinayeen in ay xafiis u shaqo tagaan dhalinyarta waxaan kula talin lahaa runtii waxaad haysataan fursad qaaliya xilli waxaad ku jirtaan dhalinyaro aad ku noqon lahaydeen maalin ku taajir macnaha waxaan ka wadaa maalin ku taajir keliya ta hadda hal qof aalada tiktok keliya ta waxaa laga yaabaa inuu hal qof hadal uu yidhaahday uu ku gaadhay uu caan ku noqday caannimada uu qofkaasi caan noqday waxaa laga yaabaa inuu waxyaaba badan ka faa'iidaysto inuu ka faa'iidaysan karo inuu shirkadaha intuu tago uu yidhaahdo anigu caan baan ahay dad fara badan baa yaqaana waa inaa kuu samayn karo inaad igu dhajisan karta sawirada xaysiiska in xaysiis la samaynayo inaan anigu kaaga dhex muuqan karo wax jirta dad fara badan oo kameramaaniina oo hadda waxay haystaan mobilo fiican bay haystaan hadda mobiladooda waxay kaga faa'iidaysan karaan waanay garanayaan sida wax loo duubo oo kuwan tiktok duubaya inay dhanka wanaagsan ay wax ka duubi karaan kameramaanida waxaan aada ugala talinayaa oo ka maqan shayga la yidhaahdo balanta iyo inay aanay isku qabanin laba shaqo oo aanay isku qaban karahayn inay booking samayn karaan qofkanna magaranaysaa waqtiga ay video ugu duubi karaan iyo waqti ay video ku siin karaan ay dadkii u sheegi karaan oo ay ballamaha si fiican u ilaalin karaan taas baa ka dhiman ay taas hagaajiyaan kuwa ay u maaragtay u hagaagsan tahayna waxa leeyahay waad mahadsantihiin halkaa kaga sii wada inta badan waxaa la dhahaa farsamo yaqaan oo dhani waa beenaale taa wax ka bedela waan leenahay soo ma si fiican aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdicadde thank you waqtigaaga iyo waxba aad baad ugu mahadsan tahay idinkuna aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu